أنا نبض كاني نبض أنا كاني وحال لو جوجنا أنا يا إسكال عبالك أبوي صدق يا صدق سرد بديدنا هدي أي أرنف كوجوليستو وين كوجوليستو أنتاي هدي ماهرة سيدي بيوجر سوري دونتا دتك الصوماليات إثيوبيا قرينا ما وين نسياني وحوالك شاكا ما يجي صدقات ما حوجي يقول هلي الرحمن الرحيم إله الله بطلب تيرون إله إفكي آخرة ونون حريصه كلمة اللي يدي حزبي هكذا الله وحن كيره الرئيسين يا إن يرى تاريخه وحن لقى جوجا صدح صدق سرنادات وقت يجوحه أي عالم كأوها يسوقان كرهوها يسي أساسا الدولة دني وحيا هيد صدح يا لباتنكي بشي كوبات كن سقال بقول إيو صدح يا سقاشنكي مالين السبتية كودي إيو 8 دقيقة أقل جار مهبركة مقالة الدردبا مشركة جاركة مركي لغو داريي دولتي ugu horeysay oo hogaaminayay mudane Cabdullaahi Maxamed Saadi oo madaxweynaha ka ahaa Siyaad Badri oo madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa Mahdi Ahmed Warsamaan oo ka ahaa xogayaha waagaas waxa jiray madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo xogaye waxa daariyay oo joogay ra'iisul wasaarihii waqtigaas oo loo jiray Tamaraat Layne iyo Daawud Yohannes oo ahaa la taliyaha madaxweyne markaa waxa ahaa Malla Zanaawi isla markaana wuxuu ahaa madaxa guddiga doorashooyinka kelmadihii maalintaas halka laga akhriyay waxa ugu weyneed oo Tamaraat Layne dadka Soomaalida oo kula hadlay waxay ahayd waxa tustaan Soomaaliyay baarlamaankanow madaxdanay in aad tihiin dad Itoobiyaan oo dalkani wax kule ama kamida kadibna sida ay u shaqeysay nidaamka lagu shaqeeyo sameeye ayayna noqonin inaad 12 oo rubuc dhiban inta soo kacdaan oo xafiisada yar rabishtaan oo meeraysataan kadibna aad ku noqotaan qaladiini waxa ku xigay golihii wasiirada oo lagu dhawaaqay 12 bishii May oo maalin salaasa iyo 12 bishii May oo maalin Arbaca ah 1993 hotelka Gion la yiraahdo ee magaalada Addis Ababa oo ka akhriyay wariyihii Hussein Maxamed Giire oo ag fadhiyo Cabdullaahi Maxamed Saadi golaha wasiirada waxay ahaayeen 21 wasiir bay ahaayeen waxaan nasiib u yeeshay inaan ka mid ahaa wasiirkii ugu horeeyay shaqadii arrimaha bulshada ee waqtigaas dawladda ay dhistay 21 kaas wasiir 21 wasiir Soomaali oo dhan iyay ka tirsanayeen ama ay ka mid ahaayeen waa ta ilaa imika aan uga hari laayahay ama aan u raacay ama aan ugu qancay in aan ONLF anuguna aan weysada dadka u qaadaya ama la qaadaya aan ka mid noqdo waxay ilaahay cadaaladii ugu horeysay shacabka kaadiya marka ugu dambaysa isku kaydara laakiin inta hore hawsheeda iska yar wata hadii isana iga bardinin waxaan uga socdaa 3 sano dabadeedna haddii ay ONLF ku guulaysato wayna ku guulaysan doontaa haddii maahire sidii bay u garsoori doontaa dadka Soomaaliyeed maxaa yeelay waa urur ku dhisan cadaalad waa urur Soomaali ah dalkan isaga iska leh ninna magan uguma aha intaasi waa xusuusin shirki ugu horeysay maalin khamiis oo bishu ay tahay 13 bisha May ay ahayd 1993 iyo waxaan ku galnay golihii wasiirada ugu horeeyay shirki wuxuu ku qabsaday qolka 101 hotelka Hareen Bay la yiraahdo oo ka soo horjeedayay wasaaradda gaashaandhigga Itoobiya magaalada Addis Ababa waxaan inta aan xusayo waa inaad la qabsataan wixii la soo maray halka la maray waa imika waxa laga sheekeeyaa nabad qoladani BBdu waxa ibadan laabta lagu garaacaan ama ay noogu manna sheegtaan in iyagu nabadda keeneen ma keenin shalay waa joogteen liyu boolis baad lahaydeen maleeshooyin baad lahaydeen ciidan Itoobiyaan idin taageerayay maad wadada martaan hadaad wax isku haysaan anaa nabadda keenay waxa lagu joogana aniga ayaa iskala abaalka ugu weyn ما إنكره إن أدو حكوا لهذه لكن
nabadda lagu ceeshayo halkan maanta inaan si xor ah aan codkayga uga dhiibanno waxaan ku keennay dhiig iyo dhuux iyo dhidi daatay ee sadaqad ma ahayn sida awgeed ilaa imika nabaddii baan u taagannahay in aan nabad ku halgannana waan rabnaa doorashadana nabad baan ku galaynaa nabad baan ka shaqaynaynaa dowladdeeda iyo ragga maamulka noo hayana waxaan kala shaqaynaynaa nabad iyo soomaalinimo waxa kale oo dhan walba xisbigiisa iyo aragtiisa meel buu yahay laakiin soomaalinimadu ninna nin kale magan ugu maaha Itoobiyaanganina ma wayna siiyeen waxba la sheegaa meesha sadaqad ma xoogayga ku helay sharci baan ku helay dhiig baan u horay dhalinyaro badan iyo waxay dad badan ayna sameeyeen iyana sameeyeen waxaa jirta ciyaal lala ciyaarin oo reerfo ciyaalka weeyaan lalama ciyaaro markay dagaalka tagtana way taqaanaa markay nabadana sida ummadaha loo hogaamiyo iyo sida dadka loogu garsooro way taqaanaa kalmadaasna intaasaan ka odhanaya waa ta xisbiga xisbi waxa weeyaan dad tashaday oo sharci leh oo nidaam leh oo ku heshiiyay nidaamkaas inay fuliyaan wada nabadana ay u maraan haddii nabadda la diidana wadadii kale ay ka fursan weydo in loo maro badal baan ku soo gabagabaynaya maadaama dad badan ay sugayaan laba nin baa dagaalamay baa la yidhi mid waliba waran buu soo soofaystay wiil baa si fiican waranka u soo soofeeyey kii kaluu la dayday halkaa widhaa kaga tabisi uu la waayey kii lala waayay baa warankii soo qaatay shalay toona la soo soofeeyey xariifkii hore wuxuu yidhi arwalaalkii walaa shalay toona soo soofeeyey waxba igama reebaye arwalaalkii bara igaga duub buu yidhi oo adigu markaad ila soo dooranaysay maxaad u xasuusan lahayd inaad shalay soo soofaysood mara igaga duubaysay waxaan uga socdaa oo nalfoy taqaala ninkii hadh u jiiday iyo ninkii cadceedda dhigayba kama aarsanayno waa dadka yagii waa kuwaan u halgamaynay waa kuwaan duurka ugu jirnay waa kuwaan u silicnay waa kii aan wax kasta oo qaaliya aan u horray laakiin ma iloobayno way noo kala tirsan yihiin markaa sida leeyahay waxaan uga jeedaa waxaan dadkayga ugu aarayaa inaan u garsooro waxaan dadkayga ugu aarayaa inaan simo waxaan dadkayga ugu aarayaa inaan qayrkood raaciyo midna waan idinku bishaarayni shalay toole 3 sano horteed wax badan ma haynin laakiin maanta shidaalkii baan hayaa cigaal baan u wada xidhayaa dadkayga ninna uguma daba joogsanayo ninna magan uguma yihi markaan anigu aan ka dhergo ee dadkaygu ay dhergaan waxooga ay helaan iyaan Itoobiyaanka kale wixii aan siinaya ma ina Itoobiyaanku ay siinayaan waa aniga ninka bixinaya ee qaybinaya maxaa yeelay waa ciidaydii waa dhulkaygii waa xaqaygii waxay noo balana doorashadaas oo codka nagu siisaan